ka faa'iideyso ku dhawaaqista erayada luqadda Ingiriiska. Maanta waxa aan ka hadlaynaa haddii ay israacaan e iyo y in loogu dhawaaqayo sida e oo kale. Tusaale ahaan, monkey ayaan leenahay eraygan. Monkey ma ahan, waa monkey. Daanyeer ayaa laga wadaa. Nambarka labaad waa key. Key ha dhihin. Key ayaa leedahay waa fure. Waxaa ku xigto donkey. Donkey ma ahan, waa donkey. Dameer ayaa laga wadaa. Nambarka afraad waa money. Money waa lacag. Taas inta badan waa taqaaniin. Nambarka shanaad waa honey. Honey waa malab. Honey waa malab. Honey ha dhihin, waa honey. Nambar 6 waa kidney. Kidney waa keli. Kelida qofka ayaa la dhahaa kidney. Waxaa ku xigto journey. Journey ma ahan, waa journey. Journey waa safar. Nambar 8 waa alley. Alley waa luuq. Haddaba isku day in aad ku dhawaaqdid eraygan hoos ku qoran oo micnihiisu yahay kabsar caleen. Sidoo kale ha iloobin in aad na soo follow gareysid oo aad la wadaagtid casharkan asxaabtaada si iyaguna ay uga faa'iidaan. Mahadsanid.